بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr. ka dambe waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed horta wadankeena Ilaahay nabad ha nooga dhigo. marka xigtana dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ayay mareen oo iskugu jira abaaro iskugu jira Ilaahay kuma darnaatay dagaalo sokeeye dagaalo kale oo jabhada maanta annagoo ku sugan magaaladan Dalimon ee gobolka Juura dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo jaaliyada oo madaxdu ahay marka labaad waa salaamaya. gudoomiyaha hal su'aalan ku weydiiyo waxaan maqlay waxa taa gudoomiyaha gobolka Juura ee Switzerland sidee u aragtiin maanta ciidda maadaama bishii barakeysnad ee Ramadaan ay soo gudateen sidee u aragtiin dad badan maadaama aatiin oo dhalinyaro oo aad iyo aad oo ilaa 30 ah gaaraysiin ilaa 20 ah u dhaxaysiin dadkaas ma wax mustaqbal iyo wax oo maanta damcan ee muuqdo ee loo qabtay ma jirtaa oo qabat adiga aad u mahadsantahay wariye Cabdikaafi Qoyste waa jirtaa oo maanta horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan ciidan way iskaga midaysan yihiin ciid oo khilaaf ka jira ma ahan si meel kasta ay joogan ummadda muslimiinta waa la wada iiday maanta oo xad ah meeshan aan joognana dhalinyaro fara badan ayaa joogta maadaama aan gudoomiyahooda ahay hadda waxaan qorsheynaynaa in aan si jawi wanaagsan ee waxbarasho ah dawladani hoose aan kala xajoonno hadduu Ilaahay yiraahdo annaga iyo gudiga aniga aan teamka aan hogaaminayo waan ka wada hadalnay waana ka wada shaqeyn doonaa insha Allah wiiga soo socda. Gadoomiye dhowr su'aalood ayaan ku weydiinayaa run ahaantii waxaan u maleynayaa run ahaantii markii dalka la joogay iyo markii dal shisheeye la imaado isma laha dadka waxa macquul ah in dad hore wax u soo barteen ahayn ama dad halkan waxbarashada ku bilaabay waxayna ku xirantaa qofka xirfadiisa waxyaabihiisa Switzerland sida la sheegay waxa la dhiibaa wax la yiraahdo F oo dhalinyarada lagama qiimeeyo marka gudoomiye maanta mid ugu horeysa oo aad ku kici kartiin maadaama ay tahay farxad oo isku imaadeen oo taa gudoomiyihii gobolka Juura oo nin aad u dayar ah tahay ma sha Allah Allah ku dhaafo bal sidee nila tahay arinta ugu horeysa aad qaban kartiin oo maanta tilaabada ugu horeysa aad qaadi kartiin gudoomiye horta tilaabada ugu horeysa aan qaadayno aniga iyo teamkayga waxay tahay wax la yiraahdo islaax been الناس dadka in macnaha la walaaleeyo dad barab badan ayaa iska jiro oo uqdad iyo waxaasi ay cuuriyaameysay ama si gooni u xuquuqday dadkaasi walaalaha ah inaan mideyno aan ka mideyno inay yihiin dad walaalo ah oo muslim ah oo Soomaali ah ayaa horta aan ku dhaqaaqi doonaa marka xigtana sidii aan wadankaani aan ku noolaan lahayn oo jaaliyad mideysan aan ku noqon lahayn ayaan ka shaqeynaynaa hadduu Ilaahay raado. gudoomiye jaaliyadaha kale ee gobolada kale nigu dhagan ama gobol kulay waxaan maleynayaa meesha waa gobolyo jaaliyadahaas kale ma la xariirteen oo dad mideysan ma noqoteen mase idinka kaliya ayaa damcan isku dhex jiro waa maasantahay waa su'aal muhiimsan Cabdikaafi Qoyste waa jirta gobollo fara badan oo aan socdaal ku tagay oo aan kala tashtay gudoomiyaal fara badan ay ka mid yihiin Karton Lausanne Karton Fribourg Ilaahay kuma darnaatay Karton Basel Karton Berna oo aan xalid ka imaaday aad iyo aad ayaan dadkii meeshaas joogay ama gudiga ama dhalinyarada meeshaas joogay soo dhaweeyeen haddana ku soo dhawaada yar oo nolol keenay ma sha Allah insha Allah runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay gudoomiye waa arin aad iyo aad loo baahan yahay maadaama xalfad weyn aad isku timaadeen Ilaahna ha barakeeyo anigana waxaan leeyahay ciid wanaagsan run ahaantii waxa wanaagsan dhalinyaro maadaama aad tiin ninkii ugu badan gobolka Imasasan ayuu joogaa taas waa su'aal aad ku jirto meesha in la isweydiyo meeshan gobolkani ma ahan gobolada kale ee jaaliyadaha Soomaaliyeed ay ku badan yihiin gobolkani Soomaalida qofka ugu soo horeeyay waa annaga iyo adiga oo Cabdikaafi Qoyste ah
iyo saddex qof oo markaasi long term joogtay adiga 6 sano okay saddex afar sano 5 sano ayaa loo okay gudoomiye marka ma jira wax family degan magaalada oo xaasas leh dhalinyaro degan oo family weyn degan oo muddo degan iyo waxyaabahaas ma jiraan gobolka fiican ha waa jira hal family ah laba family ah jiro yarkan Saadaq Maxamed صح iyo gabar kale oo Keef iyo la yiraahdo ayagana waa soo dhaweynayna familka inuu ku soo bato insha Allah kullu caam okay wax gudoomiye ku xigeen iyo wax dabcan maaliyad iyo waxyaabahaas wax ni arro dawladda hada isu jiraan inay kabto ma jirta gudoomiye mas waa inay kale dhaqaalihiin si fiican waa jirta oo dawladda Switzerland dhaqaalaha ugu badan ayadaan ka helnaa waxaan ku xiranahayna waa dawladda hoose ee gobolkani gaar ahaan gobolkani aan wada shaqeyn leenahay dawladdiisa hoose okay gudoomiye waa mahadsan tahay maadaama aan ka wareysanayno waxyaabo badan aan ka wareysanayno ma jirta dadka abaaraha Soomaaliya waxyaabo oo jaaliyadiina oo aad maanta ugu tabarucdeen ma jirta mas waa idinka hadda soo koray jaaliyada cusub soo koreysatay insha Allah waa ku tala jirnaa insha Allah in aan dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan aan dhibaatada la qaybsano aan wax ku gaarsiino insha Allah صح ma gudoomiye ma isleedihiin maadaama oo dhalinyaro Soomaaliyeed aadtiin oo aad iyo da'yar aadtiin in aad maanta wadankii wax u qabatiin mustaqbalkiina waxa ku dhamaysan doontiin wadanka Switzerland insha Allah kulligeen waxaan jecelnahay Soomaalida wadankeeda way jeceshahay oo inay ku wada laawatan way jecel yihiin waana ku laawo doonaa insha Allah wadankeena inaan wax u tarnano waan rajaynaynaa insha Allah biidnillahi al-kariim okay gudoomiye aad iyo aad baa u mahadsan tahay maadaama damcana wareysigaas iga ogolaatay waa gudoomiyaha gobolka Juura magaciisana waa Cabdullaahi Calceed wuxuuna ku magac dheerayaa Calceed waa gudoomiyaha gobolka kaliya ee maanta u taagan dalka musharaxnimada ee madaxweynimada mustaqbalka haduu Ilaahay nafta nagu simo wa calaykum asalaam gudoomiye Allahu barakaatuh